marka waxaan u baahanayaa inaan barafkii iyo cabitaanka is dhex geliyo. Magacaygu waa Sahra Axmed Maxamed, waxaan ahay baariste, waxaan ka shaqeeyaa Dilay Coffee. Baarisnimada muddaan ku jiraa, waa safar dheer oo dad badan la kulmaysid, dad badan ku baranaysid bulshada qaybaheeda kala duwan. Marka waxaan dhihi karaa baaristaha wuxuu kulmiyaa bulsho. Marka horeba jecel aan u soo galay inaan barto xirfadan. Inkastoo xirfadan ragga ay ku badnaayeen, hadda gabdhiyo ku bateen. Marka sababta xirfadan u barto waxay tahay jecel aan u qabo. Shaqooyinkayga horena oo ugu soo tagay aan sidaan xirfadan meel sare ugu gaaro, dadaalkeedna waan wadaa ilaa hadda. Shaqo walba caqabad ay leedahay. Caqabado mar walba caqabad waa mid la xalin karo. Caqabadan la xalin karina ma jirto. Caqabadaha ugu badan ay soo gaarna waa midaan laga yaabee customer oo kale ku imaado. Waxaa laga yaabaa Soomaalida inta badan wax xanaaqsan yahay. Asoo xanaaqsan inuu ku imaado laga yaabaa. Marka qofkaas xanaaqsan waxaa looga baahan yahay adiga inaad isdejisid oo si degan oo diirnaan inaad u eegto. Baaristaha markii magaca guud waaye laakiin shaqooyin badan oo soo hoosgalaya. Waan ku faraxsanahay maalinta adduunka ee haweenka. Lagu hambalyeynaya haweenka Soomaaliyeed si gaar ah 8 Maarso.